السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan waxaan idinka salaamayaa magaalada Nairobi dhammaan asxaabteedii baan u jeedaa rag iyo dumar intay yihiin aad baan idin salaamayaa aadaan ugu faraxsanahay caawa inaan mataqaanaa sanad guurada aan laygu casuumin aniga usually aroosyada aan laygu casuumin ma tago sababta la iga tagayna rag oo Zakari Trade iyo Shakuur ay ka mid yihiin ba horumarkayga ka xun waan ogahay laakiin anigu zab noocan oo kale ima dhaafto intaas oo iga kaftan horta aad baan ugu faraxsanahay wixii ku bilowday sidaan ogeyn maanta referenceyaasha ugu waaweyn mataqaanaa iyo every aspect of cryptocurrency stock iyo waxbarasho meeshanay taallaa meel walbana maanta ha ahaato dalka iyo dibadda ayaan dhexdaas xataa barnaamij aan ku sameeyey Toronto Canada runtii idinkoo aan ogeyn xataa idin sheegina mataqaana boorkii aan soo dejiyey waagaas about 3 weeks ago ay ahayd magaciina dusha saarnaa xataa Canada iyo Maraykan iyo Yurub iyo meel walba xataa dooxa waa idinka yaqaana meel walba intaasna ma ahan siyaasad ma ahan qabiil ma ahan wax kale waxay tahay un waxbarasho la iska faa'iidaysto dhalinyarada ay soo galaan recommendationkaygana qof alla qofkii i weydiiyo platformada aan ka isticmaala social media waxaan dhahaa wax kale ma dhaho waxaa tagtaa Somali Finance meesheeda tagaan leeyahay rag iyo dumar baa jooga meesha aqoon isweydaarsi waaye dad macallimiin expertiya imaada wax walbo wanaagsanna oo la sameeyana perfect horta ma noqdaanoo boqolkiiba boqol ma noqdaan mar waxaa iska arkaysa obstacle dad envy ah ani wax ma qariyo dad iska jealous ah dad si kale u isticmaalayo laakiin intaas waxa ka weyn wax laga faa'iido hadda meelihii aan ku soo wareegay meelaha u socday bisha September bisha August waxaan u socdaa Jigjiga haddii la yiraahdo September waxaan aadayaa Baydhabo intaas oo dhan dadkan ku soo xira waxaan dhahaa no other reference barnaamijkayga markaan bilaabay waxaan leeyahay waxaan ma rabtaan inaad barataan qof adiga oo personal markii aniga boqolaal kun oo followers aan leeyahay one to one qof lama hadli karo waxaan dhahay meeshaas habeen walba 9 o'clock markay tahay Somali time imaada waxay su'aala meeshay diyaar ku tahay waxyaalaha kale iska yaryarka ah meel markay success noqoto annagii oday ah oo meelahan iska wareegayno qofna aan ku dhagayn habeenii maalin waa lagu dhagan yahay waxaan leeyahay sidaan laakiin looma joojiyo waxa la fiiriyaa inta wanaagsan ayaa la fiiriyaa marka waxaan leeyahay dhammaan asxaabta hambalyo aniga waxyaalo badan xasuusahayga inta kama sheegi karo aad ay u fara badan yihiin laakiin apart from aqoon isweydaarsigeenii iyo waxyaaba badan iska faa'iidnay lacagihii badna aan samaynay iyo waxyaalaha aadka loogu dhaleeceyn jiray wuxuu aadka u qosi jiray waayadii hore especially winterkan aad u xasuustaa anoo London joogo oo lugayna waxaan aad u xasuustaa ninkii la oran jiray Trade waxa lagu dacaydeyn jiray Solano maanta de laguma dacaydeyn karo who is talking BITHOD laha ma inta kama dhigi kare and I'm very happy that waxaan ku soo gabagabeynayaa bilaa shaki situation noocan oo kale marka lagu jiro wax lagu baranayo wax la isweydaarsanayo the moment of very light moment na waa jirtaa oo mataqaanaa oo funny aniga the funniest thing in my life waxay ahayd ninkan Trade la yiraahdo mar walba ku soo celiyaa taasna aad igu nacab yahay laakiin wax ma qarin Trade intaan London ugu tagay Soomaalidu dhaqan bay leedahay qofku waxa la dhahaa marka ay war magaalada ma timid war waa ku casuumaya ayuu ku dhahaado ku mushkil laakiin qof casuumad weydiinay ka war walaalo waxaad igeysaa maqaayad hebel igee saan u lahaa maalintii dambe ninkii hadalkaygu dhibsaday waa ii imaado Cabdinaasirna keeno u dhahay meeshii aan ku geeyay meeshii aan tagnay cunto fiican noo dalba hal saxan bes u dalba hal qof loogu talagalay Solaan hoos ay jirtay waagaas laakiin hadda ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay waxaan kaloon ilaabi karin laba nin inta ku jira Zakari iyo Shakuur horta Shakuur tiis waa another level Zakari aan ku hormaraya Zakari aniga nin kale oo dhalinyaro oo teamka kamid ahaan jiray ayaa wuxuu yiri Bruxelles idinku soo dhaweynaa soo dhawaada anigana denin oo ilaahay haddii ku rooyin Lamborghini iyo Ferrari iyo waxaan ahaa u bartay oo mataqaan lagu soo dhaweeyo Soomaalida waxaasay sameeyaan waxaan ka soo degnay train stationkii baabuurtii uu aaskala dhihi jiray oo ruuska Soomaali keeni jiray oo xataa marka la kicinayo bahal bir la dhexgelin jiray la wareejin jiray awyeeshina wadan jireen uu soo dhaweeyay yaaba ila noqotay Shakuur laakiin wuxuu igeeyay the best Yemeni restaurant of Europe uu igeeyay maalintaas laakiin anoo sidii u faraxsan arintii waxa ku dheedeelay nin Shakuur Cabdalla la yiraahdo Shakuur Cabdalla anoo gaajo tacbaan lahaa ninkii la socday
intaan kusoo gabagabaynayaa wuxuu dhahay the best Arabian restaurant maqaayad Arabi geeyan dhahay anoo gaajo islaama maba cunin maqaayad Amsterdam oo 3 saac bar loo soconay by the way Holland dhexdeeda dhan waxa loo socdaa 3 hours ya meeshuna geen 3 saac loo socday markaan tagnay waxaan bariis iyo hilib oo skor ku jirtaan la siiyay habeenkaas isbitaal la dhigay sokorteyda waxa la diabetes in diabetes ku dhacda ku siga taala marka saaxiibadaas xasuusaas ay loobi kara waa soldiers oo waqti badan soo qaatay dadaan is aqoonin qabiilkooda aniga aan interest aan ku ahayn dhalinyaro wax ku ool ah intaas ayaa la fiiriyay annaga dhibkeena ma yaro social media waa isaga jirnaa wax baan qasnaa wax baan maalin walba dhagax ku tuurnaa laakiin aniga meeshaan ku nafisa meeshaan way raggan iyo gabdhahan meeshaan ku jiro especially waxaan aad aan isugu dhownahay gabdho badan iyo wiilal oo reer Nairobi ah magaaladan deganahay hadda saan u joogo marmaraan barnaamij qabsanaan way soo buuxsamaan oo waxyaalaan kala faa'iidana marka sanad guuradan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay may this will be the first second third ilaa iyo aan ka gaarno tan kale idin xasuusinaya xilligan qofkii maanta yiraahdo Cabdinaasir what is the best thing aan sameeyo dhalinyarada waa advice gareeya aniga dhageyso ama hay dhageysanin lacag aniga ma helaayo lacagna ma qasaarayso tii ugu dambeysana waa ogtihiin sida la ii dhibaateeyay LSSC markii aan soo bandhigay oo aan guarantee ka dhigay dhigtaan duranaya ani haddana hal mar iga maqasho dhigtaan duranaya si live ah sidii dumarkii oo kale kaar meeshaas LSSC markii aan ka hadlay dhowr jeer waad aragteen waa lagu qoslay tan waa ka hoos baxday balaa si loo lahaa waxaan ba tagay xaruntii ay ka diiwaan gashanaayeen ee Toronto aan tagay live aan ka soo galay meeshii aan tagay waxa la igu dhahay Cabdinaas nin oo spare parts camal u ahaa meel meeshan waxaas ma naqaan dad badan ay imaadaan meeshan ma naqaan Soomaalidii waa la dhacay laakiin malayn maayo qof meeshan ku jiro idinkeedii ka mid ah in lagu dhacay ab noocaas oo kale ah PCX ha ahaado CJ ahaado 2139 ha ahaado waxaas oo kale aniga qofkii maanta advice u weydiiyay haddii ahayd ICT ama currency crypto haddii ahayd saddex waxyaalood baan advice gareeya tan waxbarashada ama blockchain ama AI ha barto ama cyber security ha barto dhinacii dhig qofkii raba maanta lacag inuu sameeyo long term and short term whatever a trade investment waxaan dhahaa cryptocurrency number 2 wuxuu noqonayaa stock market oo day trader oo shirkadaha oo blue chip iyo kuwa cusub soo baxay iyo ugu dambeyn waxa focus ka saaraysa day trade oo mataqaana forex ah ama long term investment companies la xiriira wixii ka soo haray lacagtaada haddaad rabtid in lagaa dhaco aday ku taala ani kuma qasbaayo laakiin haddaad rabin in lagu dhaco saddexdaas ayaa gelaysaa waxaa kuu dhaantay intaad Soomaali lacagtaada ku sadaqaystid inta lagaa dhici lahaa aadaan u faraxsanahay caawa dabaaldegin aan ka soo qayb galay Nairobi aan ka soo salaamay aadaan u mahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ustaad Sola hal su'aal aan rabay inaan ku weydiiyo haddii aad waqti inoo sii helayso su'aashaas oo ah bal markii la eego isbarbardhigna lagu sameeyo dhowrkii sane la soo dhaafay iyo haatan fahamka aad isleedahay Soomaali way ka heestaan crypto halkuu taagan yahay ma isleedahay Soomaalidii haatan wacyigelintii way gaarto suuqyadan jaanisidan way ka faa'iideysanayaan absolutely qofka Soomaali dadka Soomaalida sida loo dhacana way ay adag tahay sida loo dhacana way fududahay waa contradictory soo maahan waa wax iska soo horjeeda fahamka qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay quick rich wax la yiraahdo wuxuu ku leeyahay bishii meeqaan helayaa ku leeyahay ama asbuuc meeqaan helayaa laakiin waagi aniga aan soo galay oo almost hadda 9 sano afka la galayso waxaan ogahay dadka waxaan markaan u soo bandhigo oo casharadii waagaa sameeyay hadda ma isdaawanayo galabta cashar aan sameeyay 8 sano ka hor oo crypto ah commentaries marka arka kaliya iska qoslay ninka inuu dhaco raba gaalo oo cryptocurrency la dhahayo mataqaanaa oo la soo heshiiyay ani waxaas kuma qoslay waxaan qoslay saan u yaraa waagaas oo wajigay u yaraa hadda saan duq u noqdaan aad isla yaabay fahamkii waa batay especially hadda meesha ugu weyn aan dhihi karo waa bariga dhexe oo aan arko especially Dooxa iyo meesha la yiraahdo Dubai iyo North America especially Mareykan iyo Canada ba u badnaato fahamkii wuxuu noqday dadkii waxay haystaan opportunity ay ku arkaan qof leh shirkad oo cryptocurrency ay dhacday ama suuqa ka baxday aan maqlin kuwan kale la maqlo maalin walba wacyigelin nooc meeshan laga soo jeediyo meelo kale tan kale markan video ugu dambeeyay aan sameeyay oo aan ku yiri waxaan lagugu dhacayn waa stocka waxaan lagugu dhacayn waa crypto waxaan lagugu dhacayn waa forex nin dhalinyaro ah oo aan islaha fahamkiisu waa fiican yahay ay challenge garay wuxuu dhahay ana lacag iiga lunta ayuu yiri stock marketka well fraud iyo lacag lumid waa two completely different things fahamka hadii isla fahmaysan adiko dhan for example tusaale siinaya dad badan aan isnaqaano oo aan isla shaqaysano cadaana waxay ku jireen
shirkaddan diyaaradaha samaysa shirkado qaarkood ma galo oo waxyaalahan dagaalka iyo kuwii waxa sameeyo shirkaddan Rafael la yidhaahdo oo Faransiiska ayay ku jireen stooggeeda cirku ku dheganaa lacag badan ay ka samaynayeen stoog oo mataqaanaa Paris ayay ku jireen dhowr sanaba lacag badan ay ka samaynayeen markii dambe lacag badan intay gasheen stoogii cirka jira stoogii crasha ku dhacay crashkan wuxuu ka yimid dagaalkii Pakistan iyo India dhex maray India ciidankeeda cirka waxay haysteen diyaaradahan Rafaelkana haysteen laba saddex laga soo riday technology oo Chinese oo cusbeyd oo xataa la tijaabin lagu soo riday isla markiiba waa crash garoobay marka kaas fraud ma ahan stock marketka kor u aada hoos u aada hadda 120,000 maanta anoo crypto ku dhex jira duhurkii anoo jooga BBS Mall caramel cafe inta badan fadhiya qofkii area jooga waa soo mari kara waa soo sheekaysan kara shaas lacag kari anoo fadhiyo 121 hal mar gaaray bitcoin anoo isla markaas fadhiyo 119 119 kusoo laaftay marka hadduu karaasho ama lacag ay ka dhimato ma ahan in lagu dhacay laakiin lacagahaas oo millions oo Soomaali intay geliyaan abkan iyo waxan ay geliyaan lagu dhacayo that's completely different thing waayo hadda ay tiraahdid $5,000 aan xasuustaa soo ahaa bitcoin maanta 120,000 waay marka haddii oo 100,000 uu soo gaaro miyaa lagu dhacay mise lacag kaa dhuntay marka hadda common sense dadku way fahmeen waxayna ku fahmeen they do their own research dhalinyaro badan ayaa soo baxday oo crypto ka hadasha meeshan ha u badnaato kuwa video commercial ka sameeya aniga personally waxaan aaminsanahay qofka ha sameeyo laakiin consistent ha ahaado dadka wax ha baro ha u baro qaab ah sida isaga ay tahay aniga intaan sano oo aan soo gudbinayay lacag kama samaynayna laakiin faa'iido lacag ka badan hayso dadka lacag ay faa'iido u maleeyaan faa'iido waxaa mataqaanaa name recognition-kaaga kow number one waay secondly trust waay maanta waxaan hubaa haddii aan dhaho war lacag soo dirsada anoona weligay dhihin qof $1 soo dirsada aan dhaho inta qof halkan ku jirta $100 soo dirsada accountkaas oo Salaam Bank kusoo shuba investment in haya qof iga shakin lahaa male trusting the most important things qofka u gato waay marka su'aasha dadka soo jawaabo dadkii fahamkoodii siduu ahaa 9 years ago hadda waa ka duwan yahay last week waxaan joogay London ayaan joogay marka North America imaaday yarkii aan la kulmay Zuhair ninka aan kaga sheekeynay waqtan oo very role model yani ninka yar oo elitediska laakiin multi millionaire noqdo oo humble at the same time wuxuu iga sheekeeyey ma xasuustaa uu yiri markii hotelka oo Wembley oo Hilton aan isla fadhinay waa ma xasuustaa markaan kaaga sheekeynay si skeptical u ahayd maanta in aad mataqaanaa dad badan ay wax baraysid wax walbana waa la socdaa marka waxay ku tusaysaa only time will tell dadka laakiin laga dhaadhicin karo waa dad in laga dhaadhicin karo fahmi karo waay waayo qofka Soomaali wuxuu ku leeyahay Cabdinaasir waxaan muxuu ii barayaa igu sheegay ma damba ugu dan ma ahan saan kugu sheegay procedure ka helaysaa magaca ka helaysaa respect ka helaysaa maanta waxa ugu muhiimsan qof igu yiraahdo aniga ma ahan lander iyo hebelow iyo professor ma ahan waxay tira macallin qof haduu ku yiraahdo ereygaas ereyga muhiimsan ma taasna waxa ku keentay kuma keenin ina warlord ahad ama qabiiliseed waxa ku keentay prestige ka dadkana wax bartay marka toos hadan kaaga jawaabo absolutely isbedelka hadda dhacay waa ku jirta waxaana qayb weyn ah ka qaatay intaan promotion ka sameynay intaan launch gareynay intaan taageernay SFC waxay ahayd meelaha ugu badan oo maanta dhalinyarada ay yiraahdeen xataa X aan aqoonin Twitter aan aqoonin aan soo galay si ay u dhageystaan qaarkood su'aalo ay soo weydiiyaan hoos waxay dhahaan ma hadli kara gabdhaha oo kale bas ka xishoonay ma hadli karnay dhahaan laakiin without any doubt dadkii aan London ku arkay Nairobi ku arkay Melbourne ku arkay way si fiican ay u barteen I think it's a great time generation oo noocaas inuu soo baxo